تنتج inay ururcaad u aruuriyaan in dad muxsiniin oo samafalayaal ah oo Soomaaliyeed ay wacaan inay maaragtay 24 saac shaqo ay soo qabtaan 5 maalmood waxaa lagu soo xasiliyey waxaad arki doontiin oo gudoomiyaha madashu u sheegi doono oo lacaga oo la rabo in ay ahayd maantay in safar qorshaysnaa oo magaalada Beledweyne loo diro bardaal inta ayaa qorshaysnay oo madashu qorshaysnay laakiin sidoo runtii arrin awoodeeda banaankeena out of controlkeena ayaa dhacday oo ah in roobab ay garoomadii ugu degi lahaa ay diyaaradaha ka cudur daarteen inay meeshaas tagaan taasna ay keentay dib u dhac ku yimaada safarkii madaxda halka ka tegay wafdi ka kooban 5 xubnood oo madasha ka tirsan ayaa saaka ayay ahayd inay baxaan oo ku wajahnaa dadina intaas in leeg baa ku wajahnay xag marka arrimahaas iyo tabarucaadkii la soo aruurshay iyo kulli guddiyo loo sameeyey intaba ayaan maanta rabnaa halkaan ka sheegno waxaa madashu ay magacowday gudoomiyaha madashu saxiixay 2 guddi oo fatahaadahaas gargaarkaas uga wakiil noqda madasha xisbiyada qaran waxayna yihiin guddiyada oo ugu horeeya guddiga Hiiraan Beledweyne dowlad goboleedka Hirshabeelle loo magacaabay Amino Maxamed Cabdi Beledweyne halkaan maantana ayaa gudoomiyaha xildhibaan Yuusuf Xuseen Axmed oo gudoomiye ku-xigeen wuxuu jiraa Hiiraan buu jiraa Beledweyne buu jiraa waa kana Cabdi Saqdeere oo gudoomiye ku-xigeen xildhibaan Khaliil Cabdi Umar waa xubin xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beene xubin oo ujeedin mudane Abshir Axmed Cabdulle waa xubin mudane Cabdinaasir Maxamed Shirwac waa xubin mudane Maxamed Ibraahim Cabdulle waa xubin mudane Rigaal Cabdulle Cilmi waa xubin mudane Muuse Cabdi Daahiye waa xubin mudane Khadar Axmed Cabdulle waa xubinta u dambeysay oo guddiga guddiga fatahaadaha gurmadka fatahaadaha Beledweyne 12 xubnood oo xildhibaano ay ku jiraan 5 xildhibaan oo golaha shacabka ayna hogaaminayaan ugana wakiil yihiin madasha gurmadka fatahaadaha Beledweyne iyo gargaarka dadka waxaan deenaynaa maalmaha soo socda ayagoo halkaas howlgeliya aad arki doontiin xubnaha kale ee loo magacaabay fatahaada Bardaale gurmadka fatahaada Bardaale waa 7 xubnood oo hogaaminayo gudoomiyana uu yahay xildhibaan Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe Waakan xildhibaan golaha shacabka gudoomiyaha hore golaha shacabka golaha baarlamaanka Soomaaliyeed ku-xiga Maxamed Nuur Madoobe Nuunow waa gudoomiye ku-xigeen isaguna wasiirka soo noqday waxaa ku-xiga Senator Ilyas Ali Xasan waa joogaa waa gudoomiye ku-xigeen isna waa senator golaha aqalka sare ka tirsan waxaa ku jira xubinta afraad waa xildhibaan Aamine Xasan Cali waa xubin waa xildhibaan Yacquub Maxamed Cali waa xubinta lixaad waa xildhibaan Cabdiqaadir Sheekh Xasan waa xubinta 7aad oo ugu dambaysa waa mudane Cali Cabdi Maxamed oo ah xubin halkaasna waxaa ku jira 5 xildhibaan oo senator aqalka sare ku jiro iyo 4 kale oo golaha shacabka ah iyo 2 xubnood oo mas-uuliyiin ka soo noqday iyaguna soo bast ayaguna waxay madasha wakiil uga noqon doonaan 7 xubnood insha Allah gurmadka fatahaada Bardaale waan keenayno in qadarka lacagta madashu ay soo aruurisayna waxaan siin doonaa gudoomiyaha iyo maaragtay xubnaha kale waxaan hadda rabaa inaan kusoo dhaweeyo madaxweynihii hore xasan sheekh بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مهمة ما نكون ماشي بسم الله السلام الشهري ممكن أبي سامعنا الرحمن الرحيم
xisbiyada qaarkoodna aanay xisbiyada mashquulinayn oo aanan ka mid ahayn laakiin wanaagga dadkaas ayadana inaan wixii ay ka sheegeen badnaan iyo yaraan iyo markaas maantana sababtaas safarkaas weli waa taagaya ilaahay idankiisa waan tegi doonaa beledweyne mardaalana waa tegi doonaa walaalaha soomaaliyeedna waa usoo wadaagi doonaa waa usoo qaysan doonaa xanuunka iyo duruufaha gaarka muslimiin xoogogaal dhabana waa soo noqon doonaa si aan markale dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan aan kula wadaagno dhibaatada intay la eg tahay iyo dhibaatada xisaabiya dhamaato waxa kusii heli doono oo ka dambeeya maanta baahi roobka meel degi waxaa laga yaabaa in caafimaad maxaanku wada dhismo kaalmadu marka waa sii socon doonta annadu intaa kale kabana waa dadkaas waa taagnaan doona aad iyo aad ayaa mahadsantihiin dadka soomaaliyeed muslimiinta ay wanaagsan ee kasoo qayb qaateen gudoomiyaha badnaa magaceeda magaca nolosha waadi doona wanaagsan doona dad wanaagsan waxaa rabaa intaas bacdi inuu kusoo dhameeyo gudoomiyaha nolosha gudoomiyaha hore mudane بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت وسيلة لديش يعني بريها المرشح وحيد أبو رمضان إنه الكاميرا بالنسبة تنتهي بس طبعا فائدة dadka lama qabooli karo Soomaalida aan hayno marna sida badan biyaha saan qaada taasna waxay muujinaysaa inaan ku mashquulsanayn kor u qaadida nolosha maxaa yeelay biyuhu waa nicmo haddii laga faa'iidaysado laakiin ay isu bedelaan nicmo waa xadar insha allah waxaan rajaynaynaa xilliyada soo socda inaan aad ugu hayno inaan ka helno xal joogto ah فتاهرها حاجة لو واحد يقول لي أنا دعان يستأصل كان أوراها من كبار أنا إنتي سبلا ما كذا عشان سيدا حسن مباركة أو شابين ذات كرت السن مدرسة وذات كرت السن اللي وصلت الباطن ممكن ذات سومالي بكرم كودا يسخن لنا ذا هي مفاتك تعرف أن نحسب المدام كبيرة على كل القوانين حتى في السعودية أنا مدرسة واحدة عادي يعني من هذا كل القوانين شيء كذالين يصير يقول بعض الأيام أوسع كم تقدمت هذا وحين موجودين يساوي تلك معنا وسمينا يد الله مع الجماعة وشغلي ويصير مدرسة تبطل مكانها أساس جديد وأنت عادي أنا ممكن أحسن هاي الأداة القوانين اللي تجي من ذلك عكس في المدرسة وقالنا وقالنا هاي تلك الله وضعنا وكلية هاي لكن الجديد اللي بحوالي قال إلا تخفيفين تارجت كمرشح إلى 500 قيس 500 قيس إلا جارو 5 عندها 5 قيس إلا جارو إلهي لو عاد سيرة في سكين ساكت لكن هذا الأمر والرجال كان يمكن يشتغل في المنطقة السياسية السعودية هذا أنا وحنقول رجينا نجيب إن شاء الله سفر فينا وحوطة عظيم سيرة لا ينسى وقت داعي وأنا تلاقيني أقول لبضل من إن شاء الله لكن هذا لو حنا إلى جديد في شقيان وتطبيق البسيطة يصير في هذا المسؤول من كلام
إن شاء الله وحنا ندرس السلوك إن شاء الله. نيرو ما سنت أنا ذكر ذلك أنا كده بات إن شاء الله.